السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميلو بعد جوجتين أصحابتي يقول حيران وحايد الله هاي جمعة وناكسن intaas kadib waxaan ku dhahay caawa waxaan idii wadaa sheekadeeni qeybteedii saddexaad ee ahayd qofka aa kala tagteen ama exkaaga cunugiisa ma ahane cunugaaga waa cunugaaga ama English ahaan ah your ex is not your child's ex. intaan sheekada u guda gelin waxaan idinka raali gelinayaa inaan labadii wiiga ugu dambeysay aan sheekada soo gelinin sidaan hore idinka ballan qaadana sheekada inaa maaragta wiigii mar maaragta aan la socodsiiyay ahayd laakiin waa mashquulsanaay. qaybteeda saddexaad ayaan hadda u guda galaynaa laakiin intaan guda gelin qaybteeni labaad waxa inoo joogta haddii aan wax yar aan xasuusiyo iyadoo Asli iyo Cawaale ay taleefanka isku khilaafeen ay is afgaareen oo Cawaale iyo Asli taleefanka isku damiyeen Aslina dhinac u xanaaqday Cawaalna dhinac u xanaaqay. sidoo kale Cawaale oo maaragtay shirka iskuulka macallimiinta ee la balansanaay oo iskuulka kula lahaay kulan iyo Asli oo saaxiibadeed Samsam Khayrlaay balansatay si ay maaragtay luqadda uga caawiso Cawaale loo dacweeyo. saan hore idinku sheegay Asli waxa waaye maaragtay luqadda wadanka ay ku nooshahay aad uma taqaano markay rabtay inay maaragtay arrimo oo luqadda iyo systemkaas waxaas saaxiibta Samsam Khayrlaay ayaa waxaan ku dhahay horboodayso waayadana maaragtay aanan waxa ay baratay cilmiga ay baratay si wanaagsan aan u isticmaalin oo saaxiibadeed maaragtay tala fiican iyo maaragtay waana aan siinin oo isla markii xanaaqi ay kula dul dhacday aan hadalkii iyo si fiican u dhuuxin oo meelo bad wax ka eegin tiray hadee qalinkan kula dugnay bari waa isu keenkeen ninka waynu dacweyneynaa. oda Cawaale waxaan ku dhahay isma ogey waxa waaye halkaas waxaan ku yiri Asli waxay u qalab qaadatay subaxaas inay maaragtay Cawaale ay dacweyso. Cawaale waxaan ku dhahay warqad dheer baa laga qoray oo dhaliil ah oo waxaan ku iri la leeyahay xataa uu ii hanjabay ee Asli leedahay waan ka cabsanayaa ilmahayga anaa korsado arrimaha ilmahayga inuu soo faragashto ma rabo adi waxyaabo wixii maaragtay ee isku diri karto cusbo iyo kabsar caleen iyo toon iyo wixii ku diri karto ayay warqadii ay maaragtay ku dartay dacwad ay Cawaale ka gudbisay. Cawaalena iskuulkii balantii kulankii macallimiinta la lahaay dhinaca kale markii uu tagay macallimiinta markay u soo gudbiyeen maaragtay oo xataa tabashada maaragtay oo gabadhiisa inay tahay oo ogaaday oo gabadhiisa ay maaragtay codsatay ee macallimiinta ayada la hadashay xitaa macallimiinta waxay tuseen waraaqad maaragtay ilmaha ay wax ku sawiraan maaragtay ee aabaheed intay sawirtay ee loo saarayso ee dhinac uga qortay I miss you aabo waraaqadihii markay macallimiinta tuseen ee macallimiinta ay dhaheen maaragtay waxaan rabnaa inaad maaragtay gabadhaada maaragtay siisid mental support oo aad iskuulka ku soo booqato maadaama maaragtay aad magaalada aad degantahood magaalo kale aadan deganeyn oo Cawaale iyo Asli hal magaalo ay wada degan yihiin. markii arrintii oo macallimada u sheegtay oo lagala hadlay xoogaa Cawaale waxaan ku dhahay wuu calool jilaaco wuxuu isiri oy sheekadu Asli iyo problemka ma ahan ileen problemka maaragtay waa ilmahaaga ku xiiso oo ku rabo maaragtay inaad booskii waaridka aad buuxiso xoogaa wax yar maaragtay uu niyad xumaaday oo wuxuu dareemay maaragtay mas'uuliyad Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu saaray inuu dayacay waayo uu yiri oo wuxuu dhahay waan ka soo qayb galayaa waraaqadihii iyo wixii macallimiintii ka soo qaatay waad ila soo xiriirayaa macallimiinta markuu xidheen waxaan rabaa marka kulanka dambo ina maaragtay adiga iyo Asli aan wada hadal idila sameeyno sidaad isku shaqeyn lahaydeen ka bacdi markaas hadana aan kulan saddex geesood aan sameeyno maaragtay gabadhaadii yareed iyo adiga iyo Asli iyo anaga maaragtay aan isdhex fariisano maaragtay aan fiirino su'aalaha la weydiiyay marka waxa ku jira Cawaale adiga iyo Asli wada shaqeyn ma idinka dhaxaysaa. Cawaale marka ha ayuu yiri baba uusan sheegin maaragtay wuxuu is yiri maaragtay wada shaqeyn fiican naga dhaxayso yiri Cawaale. macallimiinta intii qoratay dhinaca kale ilmihii yaryaraay markii hooyadood iyo aabaheed Asli iyo Cawaale habeenkii taleefanka isku afgaarayeen caruurta way dhageysanayeen oo caruurta maaragtay aad wiilka waliba roon aad u niyad xumaado wuxuu ku yiri
hooyadeen iyo aabaheen ma maqlaysaa hooyo sidee waxay aabo ku leeda maqlaysaa hooyo iyo aabo ma ahan dad maaragtay oo wada shaqeynayo anaga maaragtay raba inay maaragtay anaga darteen xataa wanaag ugama dhexeeyo ilmihii xoogaay markay murugado cunugii markuu subaxii iskuulka tagay asigana waxaan ku halkaasoo waxaan ku dhahay fikir iyo mahalka caruurtii kaleeto maaragtay cashirka gacanta ay taaganayaan oo macalinka ilmihii maaragtay ilmo maaragtay soo jeedo maaragtay fokuskooda uu waxbarashada saaran yahay oo yahay asiga waxaan ku iri daaqada dhinacaas iska fiirinayo waa cunug maaragtay waarid maaragtay moral support iyo mentaalkiisi waxba ka gelin ee dhaleen moogta ilaa asliya cawaala dhaleen moogta ayaan daraa ku dhacday cunug ilmahaas yar ayaan daraa ku dhacday ayaan leenahay macalimadii markii break timekii la galay ayay wiilkii yaray ee asliya cawaala dhaleen ay u yeertay waxay tiri maxaa kugu dhacay maanta waxa waaye aad baa waxaan kaaga dareemayaa inaad murugaysan tahay oo aad daaqada aad maanta dhan fiirinayso maaragtay sabuurada iyo waxaan sharaxay aan la soconin maxaa kugu dhacay mayo waxba iguma dhicin waxbaa kugu dhacay maxaa kugu dhacay wiilkii yaraayo ilina soo dhaaftay markii ilinta soo dhaaftay macalimadii tiri soo bax qolkeedii meeshii geysay wixii tiri ii sheeg wuxuu ku yiri waxoogaa waxaan ka walwalsanahay ama aan ka murugeysanahay aabahay iyo hooyaday ayaa maaragtay mar walba maaragtay way isku qeyliyaan markaasay tiri hooyada aabaha may wada nool yihiin hooyada systemka inay keligeed ida haysataa ku qorane maya ma wada noola laakiin taleefon ay iska aflagaadeen ayuu dhahay macalimadina intaasi waxaan ku dhawaada macalimada European waa wada naqaanaay dadkeena Yurub ku nool iyo dadka dhageysan doona Yurub ku nool way yaqaanaan intee waxaan ku iri qalin gududan ku qoratay markaas cunugii dhabarka salaxday wixii tiri waxaas way dhamaan doonaan waxaan rajeynayaa maaragtay inaa maaragtay problemkaas u xalismo adiga waxaas maskaxdaada inaad ku wareeriso ma ahan aadaan uga xumahay tiri glass biyo soo siisay wixii tiri fasalka ku laabo macalimadii waxaan ku halkaasi wixii ka qortay idana warqad oo walwal ah ay u dirayso maaragtay hay'ad oo caruurta qaadato sidoo kalena wixii u gudbisay principalka macnaha ninka iskuulka madaxda ka haysto awaalan markii uu guriga ku soo laabtay intuu jidka soo socdo baawarka soo wada hadba wuxuu ka fikirayay maaragtay gabadhiisii yareed maaragtay sawirka ay qortay macalinimada ay tusisay maxaa sidaan ku galay asiga unba su'aalo isku jawaabay maxaad maaragtay asli aad ilmaha cawaal wuu iscanaantay wuxuu dareemay inuu qalad galay markuu guriga imaaday oo saas guriga u soo galay ayay waxaan ku iri islaanteeda wada dhinaca kalena waxaan ku iri sheekadu waxaan ku waa qasan tahay cawada waxaan ku dhaca canjeera camal u qasan tahay islaanta oo cawaale qabay markuu irida ka soo galay buu wixii tiri haye maxaa laga soo yiri iskuulka wax yar oo aamus ilaa qofku waa taqaan markuu waxyaabo murug iyo waxaas inuu maaragto hore ka hadla ma jecle markaas wixii tiri ma asliyaas meesha joogtay iskuulka ma asliyaa ku soo aragtay ilaa iyadana waxaan ku waa naag maaragtay walwal asliya ku shidan ma ogtaa iyada ninkii ay isguursadeen noloshiisii caruurtan uu dhalay iyo waxaas oo dhan ma ogtaa kama wareysatay waa gabar kale iyadana waxaan ku dhahay nolol qayaali isaga noole cawaalo waxaan ku iri laba problema jeebka jalaq loo siiyay problemkii waxaan ku dhacay gabadhiisii yaradu ka fikiraay iyo problemkii waxaan ku dhahay xaaskii uu qabo iyadana waxaan ku dhahay maseer waxaan ku iri dahawada maseer cala hawa lirkaas maseer lama yiraahdo wadato aslina waxaan ku iri macalimadii markii wiilka wax ka qortay asliya soo wacday waxay tiri walwal ayaan cunugaaga ka muujinayaa balan ku qabanayaa aslina laba problem midna dacway ay maaragtay systemka European ku taqaanin dacwo markuu qofku gudbiyo iyo problemka cunuga labada marka waxa waa bareejo cawaan laba problema jeebka ugu jirto aslina labo waxaan arkaynaa marka kiisar baad gareeyo waa idin salaamaya sheekadayna qayb 3 intaas inoo joogaysaa waxaan ku dhahayeena ku dhaafin insha Allah Friday soo socod next Friday meel baad joogtiin waxaan leeyahay habeen wanaagsan haddii aad igu cusub tahay waxaan ku dhahayaa inaad subscribe ta saar si share gareey sheekadana fariinta aan direen waxa waa maaragtay inay waalidiinta Soomaaliyeed ee noqdaan waalidiin soo jeedo oo maaragtay haddii ay wada joogaan haday kala tagaan caruurta sharaf leh oo wanaagsan u koriyo khayr iyo caafimaad iyo rajo meel baad joogtiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.